ku soo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino waad mahadsan tahay inta aynan hore u gelin barnaamijkeena haddii aad doonaysid inaad ku barato luqadda Englishka si online ah fadlan booqo website-keena fanacademy.com sidoo kale igala soo xiriir ciwaanada hoos ku xusan waad mahadsan tahay mar kale ma aha dadka u dhashay luqadda Ingiriiska ku badan yihiin meel kasta laakiin waa luqadda ugu ballaaran ee gaadhay meel kasta qaarad kasta gobol kasta magaalo kasta iyo tuulo kasta ee ku taala caalamka waayo qaarad kasta waxaa laga helayaa dadka u dhashay luqadda iyo kuwa bartay labadaba Ingiriishku waa luqadda ganacsiga siyaasadda sayniska iyo tiknoolajiyada Ingiriishku waa luqadda ay ku shaqeeyaan ururada caalamiga ah sida UN-ta iyo wixii la midka ah waa luqadda ugu badan ee laga adeegsado internetka sidaa darteed way caddahay muhiimadeeda sababta aynu u baranayno Englishka qodobka koowaad dadka ku hadla luqadda Englishka way ka fursad badan yihiin dadka kale dhanka shaqada waayo shirkadaha ganacsiga waxay u baahan yihiin shaqaale si fiican ugula hadla luqadda Englishka shirkadaha kale ee shurakada ay yihiin iyo macaamiishooda qodobka labaad maadaama Ingiriisku yahay luqadda sayniska iyo tiknoolajiyada dadka ku hadla waxay fursad weyn u haystaan inay la shaqeeyaan dadka ay isku xirfadda yihiin si ay ula wadaagaan ra'yi iyo wax soo saar labadaba qodobka saddexaad xilliga ay carruurta dhiganayaan iskuulka ku baxa luqadda Englishka waalidiinta ku hadasha luqadda Englishka waxay si buuxda u caawiyaan carruurtooda maadaama ay yaqaanaan luqadda Englishka qodobka afraad markaad tahay ruux garanaya luqadda Englishka waxaa kuu fudud inaad u safarto waddan kasta oo ku yaala caalamka maadaama aadan ka waayin goob kasta ruux ku hadla luqadda Englishka meelaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah airportka markaad tagtid ma weynaysid ruux ku hadlayo luqadda Englishka sidoo kale markaad joogtid hoteelada sidoo kale markii aad booqatid xarun ganacsi si aad u soo dukaameysatid ma waayaysid ruux ku hadlayo luqadda Englishka qodobka shanaad luqadda waxay awood u siisaa ardayda inay helaan xog iyo cilmi baaris maadaama inta badan jaamacadaha macaahidda iyo websaydyada caalamiga ah ay wax ku qoraan luqadda Englishka